Soomaaliya waxay maraysaa xilli kala guur ah bulshada Soomaaliyeedna u dhaga taagayaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ay dhawaan shaaciyeen xilliga rasmiga ah ay bilaaban doonto guddiga doorashooyinka heer federaal shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho isugu yimaadeen ayaa qorshe u ahaa in ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dhamaystiro ugu dambeyn 20ka bisha December sanadkan 2021 hase ahaatee ma suuragelin culaysyo badan oo dalka soo wajahay awgeed guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay bilaaban doonaan 16ka bisha December sanadka 2021 doorashadan ayaa waxa lagu qaban doonaa 5 maamul goboleed iyo sidoo kale magaalada Muqdisho oo lagu qabanayo xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland iyo kuwa Banaadir kuwaasi oo ka soo galaya xildhibaanada 11aad ee baarlamaanka Soomaaliya waxa loo qorsheeyay doorashada inay ka dhacdo maamul goboleedyada kiiba 2 magaalo oo xarumo u ah gobolada ay xukumaan Puntland waxa loo qorsheeyay inay ka dhacdo Garowe iyo Boosaaso Jubbaland waxa loo qorsheeyay inay ka dhacdo Kismaayo iyo Garbaharey Galmudug waxa loo qorsheeyay inay ka dhacdo Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo Hirshabeelle waxa loo qorsheeyay Jowhar iyo Beledweyne halka Koonfur Galbeedna loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe maamul goboleedyada qaar ayaa waxa ka jira dhibaatooyinka haysata magaalooyinka ay ku qabanayaan doorashada oo ay xitaa naftooda kala baqayaan waxaynu ogi doonaa suuragal ma tahay in doorasho ka dhacdo magaalooyinkaas maxaa soo hortaagan in madaxdu tagaan magaalooyinka Beledweyne waa xarunta gobolka Hiiraan ee Soomaaliya waxa xukuma maamulka Hirshabeelle ee uu hogaamiyo Cali Guudlaawe Xuseen Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka Hirshabeelle madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen tan iyo markii madaxtinimada maamulkaasi loo doortay cagihiisa ma dhigin Beledweyne inkastoo isku day dhowr ah uu sameeyay balse ma suuragelin isku daygaasi waxaana is-horistaag ku sameeyay generaalka hubeysan ee Xuud kaasi oo fariisin ciidan ka samaystay duleedka Beledweyne Xuud ayaa waxa uu maamulka Hirshabeelle ku diidan yahay kadib markii uu damac ka galay inuu isku sharaxo xilka madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi balse doorashadii ay dabada ka riixayeen filla Soomaaliya ayaa galaafatay xilkaasi waxaana loo doortay Yuusuf Axmed Dabageed oo ahaa jaanibka farmaajo iyo kooxdiisa hadda waxa lagu wadaa in doorashada lagu qabto Beledweyne inkastoo aan la ogeyn xaqiiqada dhabta ah in madaxweyne Guudlaawe uu tagi doono Beledweyne haddana wararka qaar ayaa sheegaya in generaalka hubeysan ee Xuud uu ogol yahay in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu qabto xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne balse uu soo ogolaad doonin inuu yimaado madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen oo uu horay u sheegay inuusan aqoonsanayn isaga iyo maamulkiisa dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in haddii arrimaha gobolka Hiiraan loo madax banneeyo bulshada degta gobolkaasi isla markaasina Beledweyne uu soo tagin Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ay dhici doonto doorashado haddii kale si aysan sahlanayn in doorashadu ay ka dhacdo Beledweyne